بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم caruuray kusoo dhawaada channelkayga Maida Cartoon xaafad ayaa waxa ku yaala ceel burburay maalin ayaa nin wuxuu agmaraya ceelkii burburay agtiisa wuxuuna arkay iftiin ka soo baxaya ceelka gudihiisa ninkii wuxuu dul istaagay ceelkii si uu u fiiriyo waxa ifaayo wuxuuna yiri waa maxay waxaan ifaayo wuxuu egyahay dahab ninkii wuxuu bilaabay inuu galo ceelka asagoo qabsanaya geed qalalan oo ku yaala ceelka dhexdiisa wuxuu yiri waaw waa cajiib waa shilimaad fiican waxaan u maleynayaa inaan helay qasnad isla markiiba wuxuu bilaabay inuu qodo ceelka gudihiisa asagoo isticmaalayo ul qalalan waa arin cajiib ah waxaan filanayaa waan helay waxaana noqon doonaa taajir ninkii hunguriweyni badan uu qaba darteeda si uu u helo shilimaad badan ayuu ceelkii wuxuu ka dhigay god weyn zaid ayuuna u sii qoday godkii markuu zaid u sii qoday wuxuu ka dhaxelay ninkii faraanti diamond ah markuu soo jiiday faraantigii asaga oo raba inuu soo saaro ayaa waxaa soo raacay gacan dhan oo bini'aadan ah ninkii markuu arkay gacantii bini'aadanka isla markiiba wuxuu dareemay cabsi zaid ah wuxuuna isku dayay isla markii inuu kala baxo gacantii bini'aadanka faraantigii diamondka ah sidaas ayuuna kula baxay markuu la soo baxay faraantigii si dhaqso leh ayuu geedkii u soo qabsaday wuxuuna ka soo baxay ceelkii wuxuuna imaaday banaanka wuuna cararay si dhaqso leh maalin kale nin raajuu la dhahaya ayaa wuxuu agmaraya ceelkii agtiisa wuxuuna arkay iftiin ceelka ka soo baxayo kadibna wuu fiiriyay nasiib xumo isla markiiba waxaa daftay ninkii gacan dhiig leh waxayna gelisay ceelka gudihiisa wuxuuna ku qaylinayay caawiya dad ma jooga miya nin qalfoof ah ayaa wuxuu yiri waryaahe ii soo celi faraantigayga haddii kale waa ku cunaya cadcad ayaan ka dhigaya ninkii wuxuu yiri war qalfoofow aniga ceelka kaliya ayaan fiirinaye ma garanayo faraantigan iyo waxaan aad sheegayso aad ka hadlayso war qalfoofow aniga iska kay fasax aan baxee qalfoofkiina wuxuu yiri war heedha faraantigayga ii soo celi aniga waan ku garanayaa inaa adiga xadee aniga saan kuugu sheegaa inaanan xadin faraantigaaga walaalow qalfoofow aniga kaama qaadani faraantigaaga haddaayi aaminaynin kaalay baaro qalfoofkii wuxuu yiri haddaada adiga xadin faraantigayga ii sheeg qofka iga xaday magaciisa oo keliya ii sheeg ninkii wuxuu yiri qalfoofow aniga ma garanayo cidda faraantiga ka ninkii faraantiga diamondka soo xaday ayaa wuxuu yiri ilaahayow maanta adaa isoo badbaadiye laakiinse gacantaasi maxay ahayd gacantaasi waxaan u maleynayaa inay ahayd gacan jinni ilaahayow aniga wax dembi ama qalad ah ma sameyn alla gacantaada maxaa ku jiro waaw aad bay u dhalaalayaan wuxuu yiri faraantigan adiga oo kaliya ayaan kuu keenay alla waan dhimanayaa qalfoofkan wuu i dili rabaa ayuu yiri ninka qalfoofkii haystay alla qalfoofo walaalow dilida aniga aad i dilaysad kuma helaysid faraantiga aniga iska kaydaa waxaan kuugu caawin karaa inaan kuu raadiyo faraantigaaga maalmo oo kaliya isi aniga ayaa kuu raadinaya qalfoofkii wuxuu yiri haddii aan ku sii daayo ka waran haddii aad soo noqon weyso laakiin ogow dhiigaaga ayaan soo urinayaa kadibna waan ku dilayaa cadcad ayaana kuu jaraya ninkii wuxuu yiri qalfoofow aniga isii daa waa ballan aan kaa qaaday aniga ayaa kuu soo raadinaya faraantigaaga oona kuu keenayo qalfoofkii ninkii wuu sii daayay raajuuna wuxuu ka soo baxay ceelkii wuxuuna aaday gurigii subaxii markuu waaga baryay siimaa waxay tustay dariskii oo dhan faraantigii diamondka ahaa si uga masiirsiiso ninkaygiiyow i dhegayso ma og tahay goobii naagtiisa wuxuu u hadiyeeyey faraanti qaali ah ninkaygiiyow adigana weligaa xitaa imaada hadiyadaynin ubax orod bax iga tag adiga waxaad ka hadlaysaa hadiyad aniga maanta maskaxdayda oo dhanna way qasan tahay maalin walba adiga hadal ii muran ayaa wadaa bax iga agtag aniga laakiinse sidee ku dhici kartaa goobii asagaaba baahnaa oo maalin walba lacagdeen dadka ka soo qaadan jiree sidee ku dhacday lacagtii intaas leeg inuu helo uu faraanti qaali ah ku soo gado
wuxuu yidhi wax baa qaldan, wuuna soo baxay, wuxuuna soo aaday gurigii Goobi uu deganaa. waryaa Goobiyow ku aaway, soo bax tuugyahow, maxaa la dhuumanaysaa, bannaanka u soo bax. islaantiisa ayaa albaabka furta waxayna tiri maxaad ugu haysaa tuugyahow, maxaa kaa maqan? waa sax waxa aan ku hadlaayo, bannaanka u soo bixi ninkaagan tuuga ah, dhaqso bannaanka u soo saar. adna faraantigan aad dadka ugu faanayso waa faraantigii ninkaaga uu soo xaday, uu ka soo xaday ninka qalfoofka ah. hey, maxaa dhacay, waa maxay waxaanoo qaylo ah? Sima waxay tiri fiiri ninkan wuxuu leeyahay waxaad soo xaday faraanti nin qalfoof ah. maya faraantiga waxaan kaaga soo gaday magaalada. Raajuyow, sideed ku awooday inaad i dhahdo aniga tuug ayaa tahay? si fiican u ogow, tan iyo markaan u hadiyadeeya xaaskayga faraantigan, adiga iyo dadka deriska ahba waad ka masiirsantihiin, waxaadna ku hadlaysaan hadallo qashin ah. hey Raaju, miyaad ka baxaysaa gurigayga mise xoogan kaaga saaraa? Raaju oo kacsan ayaa ku soo noqday gurigiisa. xaaskiisa ayaa u timid, kadibna waxay aragtay inuu xanaaqsan yahay, waxayna weydiisay sababta. wuxuu uga sheekeeyey wixii dhex maray asaga iyo Goobi markuu gurigiisa tegay. xaaskiisii waxay tiri alla ilaahayow, maxay tahay dhibaatadaana qabsatay? ora Siimaa u tag ee ka soo qaad faraantiga, una celi ninkii jinka ahaa, haddii kale caawa ayuu noo imaanayaa. alla gacaliso, mar hore ayaan u tegay, laakiinse way soo ceyriyeen. xaaskiisii waxay tiri haa, waxaan u malaynayaa inay celin rabin faraantigaasi, laakiinse aniga ayaa sir kuu haayo. habeenkii markii la gaaray, Raaju iyo xaaskiisa waxay soo aadeen gurigii Goobi. alla gacaliso, faraantiga aan raadinayne fiiri wakaasa. xaaskiisii waxay tiri laakiin sideen faraantiga uga saarnaa farteeda? haddii aan isku dayno way soo kacaysaa. odagina wuxuu yidhi haa, waa runtaa, kama bixin karno, laakiin waxaa inoo haayaa fikrad, waa inaan iyada dhan qaadnaa oon geynaa ceelkii, aana ku wareejinaa jinnigii. waxay qaadeen iyada oo sariirtii ku hurada, waxayna la aadeen dhankii uu ku yaala ceelkii. cabbaar kadib waxay soo gaareen ceelkii burbursanaa oo uu ku noolaa cirfiidkii. sariirtii waxay dhigeen ceelkii agtiisa. ninkii wuxuu yidhi walaal qalfoofow, fiiri, waxaan kuu keenay hadiyad. kaalay bannaanka u soo bax oo alaabtaada qaado adiga. soo bax gacaliso, halkaan aan ka tagnee, annaga waajibaadkeenni waan gudanay markaan. isla markiina way ka soo tageen meeshii, waxayna isku qariyeen geed ceelka xoogaa u jiro. maanta waa maalin qosol badan, waxa kaliya aan rabay waxay ahayd inaan faraantigayga dib u helo. laakiinse ninkaas tuulada degan waxa kaloo uu iga qaatay hal hadiyad. alla ilaahayow, xaggay Siimaa aaday? xitaa sariirteedii way maqan tahay. dagaal ayaa lagu soo qaaday islaanteedii iyo sariirteedii. alla Siimaayay ku aaway, xaggee aaday? Goobi wuxuu bilaabay inuu raadiyo islaantiisa Siimaa. hebelow, islaanteedii ma aragtay? haa, waan arkay. Raaju iyo islaantiisa ayaa islaantaada mar dhoweed sariir ku sii waday, waxaana u malaynayay inay xanuunsanayso. alla ilaahayow, waxaan rajaynayaa inaysan geynin meeshii duntay. markaas kadib wuxuu u soo cararay dhankii ceelka. markuu ceelka gaarana wuxuu arkay, wuu la yaabay. wuxuu yidhi waa maxay dagaalkan? maxaad ugu soo qaadeen islaanteyda jinkan? Siimaa waxay tiri alla waa dhintay, xaggeen joogaa? waxaan aan arkayo soo riyo ma ahan. qalfoofkii wuxuu yidhi maya boqoradeyda, ma ahan riyo, waxaan ahay boqorkaaga maadaama aad xiran tahay faraantigayga. inakeen aan aadnay ceelka, waayo waa gurigeenna cusub. qalfoofkii wuxuu soo qaatay Siimaa, garabka ayuuna saartay,
wuxuuna la aaday dhanka ceelka. Asxaabey, haddaad doonaysa inay sheekadan sii socoto oo ay xiiso kula leedahay, biliis kommentiga noogu reeb wixii qoraal ah. Mahadsanidin.